بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسعدية عثمان علي. كسو دوادا جنال كينا سعدية ستسو. مانتو waxaan idin wadaa كريم كركار كريم لدهو والسودان aad looga isticmaalo timaha aad u bixiyo timaha siinaya karatin dabiici ah وتمهada ay kala laabmayno si fiican u feeresmayaan collagen-ka timaha uu kor u qaadayo aad u nafaqeynayo qofkii raba inuu business ka sameesto aan u soo gudbin doono qaab u sahlan oo u sameyn karo insha Allah. marka waxaan u baahanahay 5 gram oo beeswax ah beeswax waa xanjada malabka malabka marka laga baxo xanjada cadda ka soo harto oo dhalaaliyay ayaa beeswax la dhahaa. waxaa kaloo meesha ku haysanaa lanolin waxa waaye dadka qaar waxay isticmaalaan barida xoolaha inay ku daraan productyada marka kana ugu haboon waayo barida waxa ku jira waxyaabo badan oo food grade ah fatty acid badan oo qabanaynin productiga cabaar markuu joogo isbedelayo marka waxa la isticmaalaa lanolin waxa laga saaraa idaha dhogortooda ama duftooda qofka soo u yaqaano meesha skinka uga dhagan tahay baruurta ka haysato meeshaas ayaa laga miiraa marka cosmetic loo isticmaalaa asoo saliidaha jiro saliidaha waa lagu daraa asoo oo waxa jiro oo sidan oo maxay tahay gel amal ama fadhiyo adag jiro waa aydan waa loo isticmaalaa creamski waa lagu darsadaa marka asigoo fadhiya maanta isticmaaleena waxaan u baahanahay 35 gram صدوني 5 جرام ayaan u baahanahay waan dhalaalneena marka intuu noo sii dhalaalayo waxa kale u baahanahay dhuux kasta isticmaali kartaa dhuuxa looda dhuuxa geela ari hadaa heshid xitaa dhuuxa aad u fiican yahay collagen badan ku jiro marka aniga kiilo dhuux ayaan soo gaday dadka Nairobi jooga ama isli degan waa asigoo oo kiila ay helayaan waxa lagu gadaa meelaha hilibka lagu gado marka anaga gacantayda ku soo dhalaaliyo ku soo sameystay kana waa dhuux waa 20 gram oo dhuuxa inta waxa igu jirto coconut kala nooc waaye coconut ka caadiga iyo fractionated coconut oil tan waa coconut ka caadiga waa yara dhalaaliyay inta waxa ku jirto simsim oil waa saliid macsaro Soomaaliyeena waxa la dhaliyaa sisinta laakiin waa cosmetic grade ayda food grade jirto aydan waxyaabo badan in laga saaro u baahan inta waxaan ku haystaa saliida qorfaha labadeeda dhowr nooc waaye ani food grade isticmaalay hadda sababta food grade ay taale waxa kaloo haystaa preservative waxaan kaloo haystaa bahal la IBA saliida ay is dhaxgeliyaa IBA productigaada marka isku dhex tartiid oo mesela waxa isku keenay anaga saliida geed laga miiray saliida kale xayawaan laga soo bixiyay waxayna is dhaxgalaan rabnaa oo qofkii ka gato aduu business kale ka sii sameyn lahaa shelfiga markuu saaray dukaanka ayaan markay joogto inayna kala soocmin saliid soo kormarin kala fariisanin marka IBA waxa la dhahay iso mistrate al dhaha marka uu is dhaxgeliyaa marka productiga ka business ahaan loo rabo oo maxay tahay oo al dhaxshuba hadaad guriga inaad isticmaashid waa iska dhaaf kartaa yaana wax badan in yar sameeysanaysa waa isticmaalaysa hadana in yar oo kale isticmaalaysa preservative muhiim waaye si productiga waqti badan uu qaato uu halaabin hadaa laabka geysid xitaa oo geysid caps geysid una isku bedelo lagu dhabalkaada shelf life malaha ama maxay tahay wax badan ma yaalaysan lagu dhihin marka saliidaha isku daraya hadda waxa isku qasnay lanolinki iyo beeswax-ki waxa rabaa si fiican inay isku dhaxgalaan emulsion sameeyaan lanolinka sida barida lagu soo carfaya ama soo uraya qofka soo yaqaan marka waa subagii oo idaha oo la farsameeyay leeyahay oo wixii loo baahneen oo kale wixii dhibkeenay laga saaray laakiin aad u fiican yahay wadamo badan laga keenaa Kenya waa laga helayaa
waa la gadaa meelo badan aan lagu iibiyaa. Waxaan isku darayaa coconut-kii iyo saliidii macsarada. waxaan ku daraa saliidii qorfaha. dhuuxii. intaan isku soo yaro dhalaalna. marka kareemkan aad ayuu fiican yahay. Suudaan macruuf ayuu leeyahay iyo wadamada Masar si fiican looga yaqaan. Carabta dhan aad looga yaqaan. kareem karkar ayaa lahaa sidaan loo hagaajiyaa. saliido kala isticmaali kartaa. saliido badan oo timaha bixiyo oo meeshan ku jirna ayaa jiro. qofkii rabo business inuu ka sameeyo isdhihin baalku soo geliyay public ayuu noqday maya. castor oil ka maqan. shea butter isticmaali kartaa. waxaa isticmaali kartaa argan oil. waxaa isticmaali kartaa vitamin E anaga ma isticmaalin. saliido badan oo timaha bixinaya jiro. saliida oo waxaa jirta flaxseed oil, chia seed oil, avocado oil. saliidahaas oo dhan waxaan uga tagay yani qofka inuu asaga uu aqligiisa iyo wixii timaha bixinayo uu roolkiisa ciyaari karo, uu ku dari karo, wuxuu rabana uu ka dhimi karo. laakiin muhiimadu waxa waa inaan soo gudbiyo structure ahaan qaabku u samaysan yahay iyo waxyaabaha mainka ah. mainka lama bedeli karo. mainka waa saliida qorfaha iyo waxa main ah iyo dhuuxa naaroolinka. laakiin simsimka waad bedeli kartaa, coconut waad bedeli kartaa, kuwaas waa bedeli kartaa. saliida qorfaha laftirkeeda timaha aad ayay u bixisaa. saliidani noo dhalaalaysaa. dhuuxa faa'iido badan ayuu leeyahay, timaha uu leeyahay. marka adiga recipe-gaada waa inuu ka maqnaanin dhuuxa, lanolinka. inta bari idaad isticmaal lanolin isticmaal. haddaa ka rabtid cosmetic soconaayo oo muddo badan yaalayo dad kasta markaan ay kasoo qaylinin timahana uu qurxinaayo. way dhalaashay. yara qaboojinaynaa. makiinada xataa waa isticmaali kartaa oo mixer waa ku shiidi kartaa. laakiin aniga gacanta isticmaalaya. marka IBA-ga ku darayaa saliidaha. IBA-ga saliidaha marka la darsaa isku dhex galayaan fiir. maasha Allah saliidaha dhan isku celinaya. hadhow wax sabareed ama keeni doonto insha Allah. isku dareena marka time ayuu u baahan yahay inuu yara qaboobo. wardagtaada markuu qaboobo 40 degree 45 oo gaaro vitamins ku dari kartaa. preservative-ka markaas maasha Allah yahay in lagu daro. marka waxaan ku dareynaa preservative. ku daraya nus gram preservative ah. marka product-keeni waa diyaar. waa package gareyneynaa. weel ayaan ku shubeynaa. weelasha kareemada lagu shubo kale u baahan yahay. laguma shubi karo weel oo sida saliidaha camal ma ka soo baxaayo. marka waxaa la rabaa weel kareem camal ah. kareemada lagu shubo oo yaro godan oo qofka gacanta ku marsan karo.
productkiisaas ayuu diyaar ku yahay 2 saacadood markuu joogo ama 3 saacadood wuu yara adkaanayaa marka 2 saacadood ama 3 saacadood markuu joogo yara qaboobo sidaas ayuu yara adkaanayaa kareem karkar la dhahaa caalam islaami dhan aad looga isticmaalaa ama gaar ahaan carabta Suudaan ayaa caan ku ah qofkii business raba inuu ka sameeyo waxyaabo badan ayuu ku dari karaa vitamin E ayuu ku dari karaa wuxuu ku dari karaa castor oil oo timaha aad u bixiso argan avocado oil mustard seed oil saliido badan ayaa jira neem oil marka waxaan rabaa insha Allah inaan arko gabdho Soomaaliyeed oo sameeyay inuu magaalada soo galo insha Allah marka soo dhawaada marka 2 saacadood 3 saacadood kadib yara adkaanaya